عليكم إلهي أيدين حفدي هذه يشيق ولا gabar saaxiibtii ayaa waxa ay markaasi hadda ka horgoysatay ay tiri nin markaasi kaasoo anfici waayay waxaana ku tiri furiinkiina waa uu ka diiday waxa ay uga tagtay wadan kale ay tagtay oo la xiriiray waxa uu sheegay inuusan wax lacag u direynin kadibna waa ay weeday dhowr sano ayaa ka soo wareegatay waxaana isku dayday inay nin kala guursato ninkii kale ay hadda ilmo u dhashay oo muxuu ahaa caruur u haysta oo mana aysan sheegin waxaana u sheegtay in la soo furay marka mana jecla inay muxuu ahaa ninkan uu ogaado qabaahi in muxuu ahaa nin kale uu qabay oo uusan welina furin marka iskama aysan fasaqi karin ay leeyihiin oo ninkii wax xog kama aysan hayn marka arinta ay jawaab ka doonayaan alxamdulillah ninka hore guurkeeda du guur saxan ahaa guurkan dambe waxba kama jiro ninka aan xogta ogeyn waa macduur laakiin iyadu intay xiriirka sameeynaysa zaaniyad way iyadu zaaniya way waxa laalay waxay xiriir gogaleed ninkan dambe dhax maray haduu ninka hore guur saxa ku guursaday waxa laalay wixii dhax maray ninka dambe dhinaceeda waa xukmu zina ismiga iyo dambiga ama ninka ay ka qarisay waa macduur haduu qarinta garawsho ku leeyahay laftiisa iyada hadda waxa waajib ku ah inay sheegto waa ku waajib ninkan ilmihiisu isaga ku abtirsanayaan maadaama loo qariyay oo nasabka xaalaadka waa la sugaa laakiin waxa muhiim inay ogaato wax xila ah iyo xarig ah iyo nikaax oo ninkan dambe isu haya ma jiro ilaa ninkii kale uu furaaday ka fasaqato marka ninkan ha ka soo fasaqato markay cidda ka soo dhamaatana ninkan ha guursato si cusub ha u guursato haday rabto laakiin ninkan meheris uma hayo intii kula joogtana waa zina oo xaraam way waa la furay been ahna كما فرنتو بالله توفيق